maamulka degmada Wadajir iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa saldhigga degmada Wadajir waxay ku soo bandhigeen saddex rag oo la sheegay in al-shabaab ay u qaabilsanayeen dilalka qorsheysan ee laga fuliyo degmooyinka Dharkeenley iyo Wadajir ee magaalada Muqdisho. saddexdan rag la soo qabtay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in shabaab ay u qaabilsanayeen dilalka kana howlgali jireen degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. magac oo ka tirsan xarakada al-shabaab magacayga afgarashadan waxaa waaye Axmed oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir qaasatan waxa aan shaqo gacanteeda ku qabto waxaa waaye mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo luuqan oo isbitaal Madiina ka mid ah tan hadda oo dawladda ugu dambeysay ay soo qabataan waxaa mid oo siliga Ameerikaanka ah anoo Ismaaciil Maxamed Awees oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo magaciina naas dilay yaqaan Yaxye ayaan u xil saarnaa degmada Wadajir iyo Dharkeenley fal ayaan ka fulir rabnay meesha beerta jaadka islaan jaaduley oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya markii oo noo dhici waayay kadibna oo naga ka tibin kadibna waa ayaan ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta nagu dhigeen kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana cafis iyo dawladda Soomaaliyeed oo falkan ugu soo qabatay idina cafis ayaa weydiisana magacaygu waa Maxamed Usmaan Macalin Axmed kuna magac dheer oo la yaqaan Abdiweli kuna dhashay Madiino gaar ahaan degmada Wadajir waxaan dhahay anigoo ka tirsanaa in muddo xarakada al-shabaab una qaabilsanaa u kala gudbinta hubka maanta gacanta ku jiro dawladda Soomaaliya gacanteeda ku jiro waxaan ka codsanaa hubkaas aan u geyn jiray eheladii lagu dhibaateeyay dadka lagu dhibaateeyay eheladooda inay cafiyaan haweeneydii qaadka iibin jirtay oo ka badbaaday dilkan ay u geysan rabeen raggaani ka tirsanaa al-shabaab ayaa waxay ka dalbatay dawladda Soomaaliya inay siiyaan goobo amni ah maadaama ay ka baqayso in al-shabaab ay dilaan. waxaan idin sheegayaa in raggaas hubeysan ay dil rabeen nafteeda u soo duuleen waxaan idin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay ama hadu celinayaa waxaan rabaa in micnaha ii sheeg meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo odagayga waa boolis xooma haysayo 7 caruur aan korsanayay marduuf jaad aan gadaayay nafteedu u soo duuleen in meel ay saaran rabo madaxweynaha uu sheegaya rasuul wasaaraha uu sheegaya baaq dheer aan diraya wax la qabto. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo goobta ku sugnaa ayaa ciidamada amniga ugu mahadceliyay soo qabashada raggaani wuxuuna sheegay inay ku raad joogaan dadkii ka sareeyay ee soo abaabuli jiray weerarada al-shabaab ay ka fulin jireen degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley ee magaalada Muqdisho sidoo hadalka u dhigay. aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidankii islaamaha amniga oo runtii ku guuleystay inay nimankan dhagarqabayaasha ah oo ku dhex dhuumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan. waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo aan hadda ku raad joogno ayaguna ay warbixinadii ku habboonaa ilaamaha amnigu ay wareysteen sida aad arkaysaanna way qiranayaan gabadhiina ayada hadashay oo runtii aan aad uga calxumaanayno qadarka laakiin waqtigeeda wax ka dhinna aad iyo aad uga mahadcelinayaa ilaamaha amniga maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliska gobolka iyo kullina waxaan ku dadaalaynaa sidii aan nimankan cadowga wax uga qaban lahayn way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca laakiin dadaalku ma yara. Cabdiraxmaan Waabri Somali News Muqdisho.